بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا سو نقد ونكسن halkani waa macna abqari youtube channel anigana waa Ustaad Cabdinuur Maxamed Samatar Ustaad Abqari maantay maxaan idin wadaa soo dhawaada waxaan idin wadaa 8 parts of speech waxa la yiraahdo luqadda marka laga hadlayo barashadeeda ama luqadda sida guudba saddex qaybood oo aad mid walba muhiim u ah ayay ka kooban tahay saddexdaasna waxay kala yihiin waa grammarka oo luqadda ruleskeeda iyo sharciyadeeda vocabulary oo eraya ah luqadda erayadeeda iyo pronunciation oo dhawaaqa saddexdaas three main parts ay luqadda ka kooban tahay maanta mid qaybta grammarka ayaan rabaa inaan sharaxo insha Allah balse intaan sharaxaada iyo hawsha waan gelin soo dhawaada aad baan idin salaamaya inaad caafimaad qabtaan waan rajeynayaa cid kasta oo ku tixan channelkan macna abqari youtube channel inta intii nagu tixneed nala socotay duruusi casharada ba kala socotay aad bay u mahadsan yihiin inta nagu cusubna waxaan rajeynaynaa insha Allah inay nagu soo biiraan waan soo dhaweynaynaa gacmo furan insha Allah fadlan like iyo share iyo subscribe intaba waxaan rajeynayaa iyo commentiga waliba jabtarada aad jeceshihiin xiisaynaysaan mar walba inaan ka soo hadlo maaragtay soo sharxa insha Allah hadii la yiraahdo aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada kuna dadaala insha Allah hadii la yiraahdo si bulshada kale u gaaraan annagana dhiirigelin inoo noqonaysa idinkuna waad ka faa'iideysanaysaan insha Allah soo dhawaada haddaba waxaan baranaynaa marka waxa loo yaqaano 8 parts of speech-ka luqadda waxaan leeyahay saddex qaybood oo muhiim ah oo ay ka koobnaanaysa waa sharciga oo shuruucda iyo erayo oo vocabulary iyo pronunciation oo dhawaaqa saddexdaas luqadda three main parts-keeda waaweena qofka hadduu sharciga barto erayo fara badan uu barto dhawaaqana uu yaqaano luqadda dhawaaqeeda dhawaaqa way sii qaybsamayaan erayada way sii qaybsamayaan shuruucda way sii qaybsamayaan laakiin saddexdaas main part-ga ayaa ugu muhiimsan waxaa sii raacaya afar qaybood oo muhiim ah oo dib ka sharaxi doono skills la yiraahdo ee luqad kasta ay leedahay gaar ahaan luqadda English-ka ay leedahay skills-kaas waxaa la kala yiraahdaa laba loo qaybinayo marka ugu horeysa afar waa tiradooda laakiin laba iyo laba kala noqonayaan qolo waxaa loo yaqaanaa productive skill qolana waxaa loo yaqaanaa perceptive skill nasi marka gooniyan sharxi doonaa laakiin concept ahaan hadda rabaa inaan sharaxo perceptive skill waxaa loo yaqaanaa laba skill oo kamid ah luqadda skillskeeda waa listening-ka iyo maxay ahayd reading-ka labada waxaa loo yaqaanaa skillskaas perceptive skill loo yaqaanaa haddaan si kale u dhaho oo si kooban aan u yiraahdo input ayaa loo yaqaanaa input skills listening skillska iyo reading skillska labadaba input waay marka waa perceptive skill ayaa la yiraahdaa waa listeningka iyo readingka labadaas waxaa loo yaqaanaa perceptive skill si kale haddaan u dhahana input ayaa loo yaqaanaa input skill sababta input ay ku noqdeen maxaa waay mar kasta ee aad dhageysigaagu bato ee aad fahanto waxaad dhageysanayso markasta ee akhriskaaga aad badiso ee aad akhriso waxaad maxay hayto dhageysanaysid waxaan rabaa wax yar inaan dul maro balse sorry waxayaanan inaan qoran rabay laakiin waqti kale ay taan badan inaga qaadanaysa waa soo koobaya casharkeena hadafku ahaa ayaan insha Allah si toos u dhexgeli doonaa laakiin taas mar gooni ah soo diyaarin doonaa afarta skill waxaa la kaleeyahay perceptive skill iyo productive skill labada perceptive skill-ka waa listening and reading labadaas markastoo aad badiso inaad laakiin marka ugu horeysa saddexdaas qaybood hadaysan ku soo fadhiisan afartan skill waxba ka keeni maysid sababtoo markuu arday sharciga barto erayana barto dhawaaqana barto afarta skill banaanka imaanaya marka wax dhageysato oo wax akhriso input la yiraahdaa and perceptive skill waa labadaas skill productive skill-ka waxaa loo yaqaanaa waa writing-ka iyo speaking-ka labadaas output waa wixii aad dhageysatay oo aad akhrisay markaad fahanto ayaad qoraysaa oo writing skill-ka ah
ama aad ku hadlaysaa oo speaking skillka. marka productive skillka waxaa kaloo loo yaqaanaa output skill. output waxaa lagala jeedaa maadaama wixii aad dhegaysatay ood akrisay aad fahantay output ay noqonayaan. marka labada kale productivena waa la yidhahdaa waa writingka iyo speakingka. sababto markaad hadlaysana wax saxana ku hadlaysaa, markaad qoraysana wax saxanaad qoraysaa macnaha. haddaba marka maanta maxaan idin wadaa? waxaan wadaa 8 part speechka ayaan sharaxi doonaa, concept guud ka bixin doonaa. 8 part speechka horta laba magac ayaan idin barayaa maantay. magaca koowaad wuxuu noqonayaa 8 part of speech oo ah magaca loo badan yahay loona wada yaqaano. waa sharciyada ama shuruucda grammarka waxa loo yaqaana naxwaha af luqadda Englishka. magaca labaadan maanta idin barayo oo inta badanna dadku aysan u wada aqoonin waxa waa word classes. haddaan ku yidhi ereygan word classkiisa ii sheeg ama ereygan 8 part speechka wuxuu ka yahay sheeg, waa isku mid. word class dheh ama 8 part speech dheh. weli word classeska ayaa inta badan buugtan way qoran. haddaa aragto marka u fahan 8 part speech waa. marka word classeska waxaan u qaybinaynaa labo. 8 part speechka oo 8 qaybooda waxaan u qaybinaynaa labo. 4 meela iyo 4 meelaan u qaybinaynaa. sababtaan labada ugu qaybinayna maxaa la yidhaahdaa, maxaa lagala jeedaa? ciwaan ayaan siinay. ciwaankan siinana waxaan nidhi waa open word classes. what do we mean open word classes? maxaan kala jeednaa? closed word classes haddana nidhi maxaan kala jeednaa? closed word classes maxaan micno ahaan maxay noqonayaan closed word classes? markaan micnaha fiirino caadiga open waa naqaanaa waa furid, closena waa xirid waa. marka ereye word class xiran iyo word class furan ma lagu macnaynaya. isa soo dhawow. marka labada loo qaybiyey 8 part speechka ama word classeska 4 meel iyo 4 meela loo qaybiyey. afarta open word classeska la yidhaahdo marka waa dareemaysaa open waa wax furan yihiin, waa open waaye, closena waa xiran waaye. haddaan soo koobo nounka iyo verbka iyo adjectiveka iyo adverbka, afartaas qaybood. nounku waa magac, verbkuna waa ficil waa fal, adjectivekuna waa sifo, adverbkuna waa fal kaab waa. saasay noqonaysaa micnahooda: magac, fal, sifo iyo fal kaab. saddexdaas afartaas saasay noqonaysaa. afartaas iyaga ah marka waxaa loo yaqaanaa open word classes. maxaa lagala jeedaa marka open word classes? aynu gudaha u daadegno. marka open word classes waxaa lagala jeedaa oo aan ka wadnaa micnaha mar kasta erey kasta oo cusub afartaasuu ka imaanaya. 99% erey kasta oo cusub ama waa noun ama waa verb ama waa adjective ama waa adverb. saasa waxaa loo yidhi open word classes. mar kasta erey kasta cusub ereyada 99% ayaga ka imaanaya. ayaga laftigooda waa sii kala noqonayaan. marka loo yimaado qoladan la yidhaahdo closed word class waxaa lagala jeedaa haddaad barato macallinna aad hesho amaad adigu self study ku samayso waa wax kooban oo haddaad barato erey cusub oo dambe kaaga imaan maayo. sida magacyaalka oo pronounska waa badan yahay ilaa 10 jeer waaye. personal pronounka, demonstrative pronounka, reflexive pronounka, emphatic pronounka, indefinite pronounka, reciprocal pronounka. macnaha pronounadu wuu badan yihiin laakiin haddana waa wax kooban oo markii qofkii waqti badan gelshaa ama time badan gelshaa uu baran karo. prepositionkana waa sidoo kale waa kooban yahay. conjunction waa sidoo kale. interjectionka ugu yarba waxyaabaha cajiibka loo isticmaalaa. exclamationka inta badan lagu daro. haddaba marka sidaasa waxaa loo yidhi closer. closer waxaa lagala jeedaa haddaad barato ood u hesho macallinku bara ood u hesho adiga inaad self study ku samayso ood barato it means wax kooban oo kooban ee la baran karo waay. haddaadan baran dee erey cusub kaaga imaanaya mar walba ku cusbaan. laakiin markaad barato wax kooban oo la baran karo haddaan soo koobo. laakiin qoladan loo yaqaano open word classeska si kasta erey kastoo cusub ama waa noun ama waa verb ama waa adjective ama waa adverb ereyada cusuba mar walba aad arkayso ama dictionary aad ka raadinayso afartaas ayaa ugu badan. kuwan laakiin haddaad barato
that's all waa isku dhamaatay sidaasa marka open word classes iyo closed word classes aan u kala fahmaynaa haddii la fiirsho closed maxay noqonaya afartan waa afar haddii la barto okay afartaas laakiin si kastooda barato erey ka socso ayuu ka imaanaya okay aan marka concept ahaan u kala qaadna marka luqadda englishka boqolkiiba konton luqadda aragteen englishka baaxadda aragteen le halkaad nagala socotaan waa macalabqari youtube channel soo dhawaada fadlan subscribe-ta like-ta iyo share-ta nagu dhiirigeliya si bulshada kalena ay u gaarto idinkana aad uga faa'iidaystaan ayaguna uga faa'iidaystaan aad baan idin soo dhaweynayaa soo dhawaada gacmo furan sidaan duruusta iyo cashiradan uga faa'iidaystaan anigana aan dhiirigelin ugu noqoto cashiro badan insha Allah aan ka faa'iidaan aan usoo diyaarino waa idin soo dhaweynaa okay boqolkiiba konton luqadda aragteen englishka baaxadda aragteen le 50% waa noo magaca marka luqadda laba loo dhigo dhig waa magac inta kalena waa inta kale ma dareemay marka soo waxa tira lafta geela badha noocaasa kala bar sala kacay okay inta aan nimaadna hadana waxaan tagaynaa adjective-ka boqolkiiba 25 waa percentage ahaan aan rabaa inaan ku fahansiiyo boqolkiiba 25 waxa qaatay adjective-ka qaadanay rubac waaya afar meelood meel adjective-ka sifada la tagtay marka haddii aan ku iri afartaasi open word classes la yiraahdaa noun-ka iyo verb-ka iyo adjective-ka iyo adverb-ka haddaan ku dhahay haddana aan ku dhahay erey kasto cusub ayaga ka imaanayaan right waa ila socotaan u malaynaya fadlan ila soco afartaas waxay ka imaanayaan ereyada ugu badan ayay ka imaanayaan ku dhahay qaasatan waxaan dib hoos u sii daadegay marka ayaga laftigooda si kala badan maadaama laba haddaan u dhignay dhig kamida magacu uu qaatay boqolkiiba 50 ereyada ugu badan oo englishka ah ee markas cusub aad arkaysaa magaca u badan doona yaa ku xiga marka ereyada cusub ugu badan arki doonto markas erey cusub aad aragto boqolkiiba rubac waxa qaadanaya 25 waxa qaadanaya afar meelood luqadda englishka meel kamida waa sifo laba hadii loo dhigana dhig kamida waa magac englishka okay verb-kan u tagna marka verb-ka isaga waa aad u yar yahay boqolkiiba maxaa waay boqolkiiba 7 waa verb-ku marka haddaba hadeer ba fiir markaan wax sharaxayno boqolkiiba 50 inuu yahay magac englishku inuu magac yahay boqolkan ku cadaynaynaa shaatiga wato gaariga computerka wax isha hada ay qabato boqolkiiba 100 waa magac doctor engineer guri gaari computer mobile calculator hoosa ishaadu markay shaaf dhisadeer haday ishaadu qabato waa magac marka boqolka hadii la isu geeyo marka qoladan maxay noqonayaan 82 ay isku noqonayaan totalka 82daas maxaa 80 boqolkiiba 82 saddexdaas qaadanay maxaa soo haraya marka maxaa soo haraya percentage ahaan rabaa inaan ku fahansiiyo boqolkiiba 82 boqolkiiba 100 hadii laga jaro maxaa soo haraya boqolkiiba 18 soo haraya 18 waxa waaye adverb-kii aan ka soo tagay right adverb-kii aan ka soo tagay iyo afartan oo la isu geeyay ayaa waxay noqonayaan boqolkiiba 85 boqolkiiba 18 noqonaya haddaba marka waxaan fahmaynaa luqadda aragteen arkaysaan oo baaxadda aragteen leh percentage ahaan inaad saas u fahantaan rabaa shaqo kale iyo hawlo badan iyo waxyaabo fara badan oo soo socdaan soo bandhigi doona insha Allah sidoo kalena waxaan rabaa inaan idin faa'iideeyo koorsooyin kala duwan oo luqadda Englishka ayaa waxay ka socdaan Abqari Online Academy si lamida courses kala duwan grammar from A ilaa Z helaysaa course kaligiisa waxa helaysaa vocabulary 6 buug oo leeyahay photo social English words oo dhameystiran ama hal mar aad gadan karto ama mid u gadanaysa buugta buugiyo 30 unit waaye 30 video laga sameeyay waxa heli kartaa kale speaking skill helaysaa course waxa helaysaa tensada meel kasto qofka luqadda waqti badan ku soo dhex jira laakiin baahiyo gaar ah qaba xataa verb and tense wax la yiraahdo tensada active ka passive conditionals reports which lagu baranayo jira course gaaban waqtigeeda badnayn qarashkeeduna badnayn oo discount fiican la sameyn doono waxaa jira book la yiraahdo English file oo ka kooban ilaa 6 heer in waa dhignaa
oo heerar kala duwan loo audio visual ah iyadana waa helena elementary beginner elementary intermediate saasna insha Allah course ahaan loo qaadanayo. Okay, aan cashirka usoo gudagala marka intaas waa hordhac yarka aan u sameynayay courseska kala duwan aan hayno. haddaba marka afartan lagu daray maxaan dhahnay adverbka shantaasi 18 percentage ay wada leeyihiin 82% ayaa waay saddexdaana qaadanaya 50% magaca ah 7% verbka ah 25 oo rubaca boqolkiina adjective-ka ah. waxaan malaynaa inaan fahanay open word class hadda waan fahansanay laakiin awal ma aanan fahansanayn. close word classna hadda waan fahanay. close word class afartan haddaad barato eray cusub oo kaaga imaan karaa ma jiro meeshaas ku dhamaaday preposition mi eraygaani ma noun ma pronoun ama conjunction ama interjection ama jirto interjectionka ugu yar baa isaga waxba saas ma isaga laakiin afarta laftigooda waa si kala yihiinoo yaa ugu badan nounka 50% luqadda ka ah verbka 7% laakiin 1% rubac waxa ah 25 adjective-ka ah. haddaba marka inaan fahnaa waa rajaynayaa concept-ahaan nu fahnay waxaan u kala qaybeynaynaa open word classes iyo closed word classes laba magacaan idiin baray oo kala 8-bar speech iyo waxaan idiin baray word classes. 8-bar speech waa dhigi kartaa word classna waa dhigi laakiin waxaa common ah 8-bar speech aa common ah word classesna waa sidaas. open word class waa maxay afartaasaa la yidhahdaa definitionadooda iyo qeexitaanadooda iyo exampleskooda casharka labaad waa laakiin hadda concept guudan ka bixinahay nounku waa magac waa naming word waaye shay kasta dunida shay saaran oo aan magac lahayn ma jiro shay dunida yaala ama xayawaan ama noole ama qof aan nool ama noole aan ahayn wuxuu rabaa hada shay wuxuu rabaa magac lahayn ma jiro marka inaad isu fahantaan waaye. haddaba casharkeena maantay waan idin soo gudbinayay macalab qar YouTube channel aad kala socoteen 8-bar speech ama word class-ka ah intaas noo ogyahay insha Allah definitionadooda iyo exampleskooda iyo mid inagoo insha Allah u sharaxi doona qofkii course ahaan u rabana koorsooyin kala duwan oo luqadda ayaan u ku haynaa Abqari Online Academy si online waxaan ku bixinaa ama online ama Telegram-ka ku bixinaa waxaan ku qaadanaa Google Meet-ka waxaan kala ku qaadanaa Zoom-ka kala casharaan ku bixinaa si Telegram-ka laftiisana oo ku bixinaa soo dhawaada aad baan idin salaamaya ومعلب قرين لساسي نبتقليو فضلا شيرتا سبسكرايبتا لايكتا iyo commentiga chapterada aad xiiseynaysan ama in ku adag ama kayf fahankiisu maaragtay inaad aad u fahantaan doonaysaan commentiga ku soo qoraada maasantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh. Sasi nabadgelyo.